السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا كسو دوادا يوتيوب channel كينا هدي أكو عصب تهاي سبسكرايب صار سيدو كلا كورسوين كلا دوان سكيل هاب أي بحصو halkan kala soco page-keena skill hub facebook waa imaan kartaa instagram waa tagi kartaa marka maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo oo maxaa la dhahaa facebook post and available sida loo xaliyo mar walba aad rabtid inaad facebook post and available ah xalisid number one waxaa u baahan tahay cilada keentay yani facebook wuxuu siinayaa recommendationskan dhan dadka qaar waxay isku dayayaan post and available waxyaabaha keenaya waxaa waaye qof wuxuu isku dayaa cover photo inuu xayisiiyo marka cover photo lama xayisiin karo sidoo kale cover video ma xayisiin kartid the post can't be posted yani postiyada qaar oo xayisiin saaran mar kale lama post gareey karo shared posteska tusaale qof kale wax soo share gareey ma post gareyn kartid shared album sidoo kale expired post waxa la jiro waxaas dhan boost ma sameyn kartid sidoo kale boosted post does not support expired album all these yani waxa waaye caqabadaha keenayo in yani postigaada oo ama boost and available ay kugu dhacdo mar walba oo waxyaabahaas ay ku qabsadaan waxaad tagaysaa facebook ads manager kana raadinaysaa yani waa meesha guud ee laga maamulo xayisiimaha facebook marka waxaa u baahan tahay mar walba inaad isticmaashid ad manager kan tusaale ani hadda xayisiinteeda lacag yar ku taagan waxaa idin tusaaya dadka two options number one waxaa fiirinaysaa horta xayisiinta inta aadin xayisiin ee maxaa la dhahaa ciladaada dhowr meelaa laga fiiriyaa marka videogan aan daawan qaybta koowaad halkaa markaa joogtaa tusaale accountkayga error waaye laakiin ani caqabad i haysto waa fahmi waa ogahay waxaa igu taagan lacagaa igu taagan marka saas darteed accountka wuxuu iga noqday error laakiin waa simple waa la xalin karaa waxaa lagu xalin karaa in lacagta aad bixiso marka haddii qaabkan aad aragtid account error oo ku dhaho simple waxaa u baahan tahay inaa lacag aad kugu taagan lacag kasta aad iska bixisid marka qaabkee lacagta loo bixiyaa waxaabaas dhan waa arki doonaa halkaasaad tagaysaa saddexdan calaamadood meesha ay ku qoran tahay kadib waxaa ku dooranaysaa billingka tagaysaa billing waxa waaye qaybtii lacag bixinta waa marka waxaa fiirinaysaa marka maxaa kugu taagan oo lagu haystaa haddii billingkaaga okay oo yahay waxaa u baahan tahay step 2 step 1 hadda aan ciladeeda sawjeed meeshan lacag $50 ugu taagan paymentgan wuu fail garoobay kan hore waa bixiyay kan waa bixiyay waxaan dhan waa bixiyay laakiin $50 ugu taagan haddii $50 aad bixin micnaheedu waxa waaye accountkayga active ay noqonaa marka inaad qaabkaas u fahantaa lagaa rabaa number 2 mar walba waxaa fiirisaa meesha ay ku qoran tahay account wallet caqabada ku haysatan waxaad ogaa kartaa account wallet markaad tagtid yani wuxuu ku sheegaa accountkaaga levelkiisa heerka uu taagan yahay accountkan yani maxaa la dhahaa qaldaad badan moo galay problems ma haasto marka tusaale saa ujeedid yani haddii rejectionska ay kugu bataan waxay ku keenay accountkaaga in maxaa la dhahaa complete lagaa xiro marka mar walba waxaa iska ilaalisaa policy violation inaad samaysid waxyaabahan camal tusaale hadda kan camal cilad iga haysto waxaa laga rabaa ciladaada inaad inta fahamto tusaale informationkaaga waa kana your ad accountkaaga waxa waaye waxaa muumin no ad is rejected waaye commerce account and catalogska accountska oo hadda ani leega xiray restrictska waa kana tusaale kan wuu xiran yahay nasiib baby house qolaa iska lahayd wuu xiran yahay waxaa la xiray 30 July marka accountkan maxaa loo xiray waxaabaa hadda daaf inaad ogaatid waa kana fiiri we have noticed subconscious activity in this account before you can request a review you need to confirm your identity marka accountkan cilad uu leeyahay oo suspicious activity loogu shakiyay marka waxyaabaha camal haday ku haystaan yani ay xayisiin dhammaan muslimiinta marka wuxuu ku weydiinaa confirm your identity ku dhahaa halkan waxaa kaa weydiinaa identitygaaga you have not continue before you can request marka su'aalo ku weydiinaa su'aal hadda ani accountkan ani malihi team asxaabnaha inaa waxa la rabay marka yani problem caqabadaas haysto to check this account belongs to you we need a photo of your official ID this could be driving license passport or other type of identification marka waxaa u baahan tahay passportkaaga iyo
sawirkaaga inaad u dirtid kadib upload aad laakiin yaa samayn karo kaliya waxaa samayn karta qofka oo accountka oo saxda iskale oo ama kow soo abuuray waxa meelaha aad ka fiirinaysid oo muhiimka ah waaye haddii xayisiinta ay ka xayiran tahay mar walbo problemkaaga xal sa ugu heshid waxaa u baahan tahay inaad ibaatid account quality markaad tagtid kadib waxaa ogaanaysaa caqabada ku haysto beedka caqabad ee haysto haddii accountka guud uu yahay waxbaas in meeshan ku kalfahmay waxaan rajaynaa inaa hadda kadib xalin kartid haddii problem accountkaaga uu ka helo tusaale kan saa ujeeda ayadana maxaa lahaa some rejections ku jiro waxbaa xayisiintan waxbaa la reject jiray tusaale apple market advertising maxaa lagu haystaa tusaale kan policy issue lagu haystaa waa kana advertising policy issue marka kan camal hadaa dhahdo waa delete gareynaa maxaa yeelaa sababtoo ah waxay ku aruurinayaan all these waxaa laga rabaa inaa meeshas aad tagtid kadib wixii policy facebook ay leedahay see more information aad dhahdid inta aad ka akhristid marka halkaa haddaa ka akhristid waxaa arkaysaa ad policieska ama xayisiinaha يعني بوليسيada iyo nidaamyada ay leedahay halkaana ka aqrisanaysaa marka aqrisid oo fahamtid mar kale caqabadan camal ku qabsanayso marka ad bolisiska aqri wax badan ka faham marka waxaan rajaynayaa inaa xalin doontiin caqabadaha ay soo wajaho. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.